ballamihii uu madaxweynuhu galay xilligii baarlamaanka uu hortaagnaa iyo hadda uu 2 sano dalka maamulayo maxaa isbedelay ana waxaan garanayaa 2 sano oo aan joogo wixii madaxweynuhu oo ballan qaaday oo sareyntii sharciga ahayd in lagu tumanayo in shabaabka dhulkii soo qabsanayo ciidamadii ajnabiga ahayd oo shalay naga ballan qaaday in wadalka laga saari doono musuqii la dagaalamayo oo maanta aan anigu garanayo guddiga maaliyadda baarlamaankan ku jira macluumaad badan aan ka haya federaalkii iyo dawlad goboleedyadii iyo dawladda federaalka cilaaqadii ka dhaxaysay xamiimka ahayd ee wax wada qabsiga ku salaysnayd markuu imaanayo madaxweynaha hadda heerka ay joog waxaarta inaad inaga nagu shubtid waxa aad fikirkaade yaa dhihi kara dawladda Soomaaliya waxay xaqiijisay 2 sano jirtay 1 2 3 ay xaqiijisay waxaad noo sheegtaa maalinkii farmaajada dawladda hadda hal bilyan mushaar ka maqnaa number 1 abkina way soo celiyeen kursiga badnaana wuu dhamaaday horta labada meel ku qorta oo kulli waxa laga soo xukumayay maxay ahayd Tigray wiil yar oo Gabriel la dhaha ayaa maamulayay wada garteen Soomaa laakiin waxaan rabaa bilcida ay dhahaysa madaxweynuhu jannadu dadka ku wadayo adaa ka jirto aniga Soomaali baan ahay maantay markaan wadamada deriskaan soconayo waxaan rabaa cunuga wadanka u dhashay ee ama xushmad iyo sumcad iyo sharaf iyo qab ugu jiro inaan kula socdo laakiin sida aad adinka nagu hogaaminaysaan ama aad noo rabtaan waxay u noqonaysaa inaad nagu hogaamisaan inuu iyaso iliido nin la haystay waxaan ka sheekaynaynaa Soomaaliya sidee ahayd shalay markuu imaanaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meel intii maanta la sameeyay ballanqaad siyaasad oo lagu sameeyay manifesto lagu oranayo 40% baan marayna 60 baan marayna 100 baan marayna you can't get even 30% of it Mudar Faarax waa ku mahadsan tahay waxaan dareemayaa inaad dal nabada ah ku nooshahay dhowr mar hore waxaan arkay madashan ka horeysa waxaa dhiirigelisay in dadka la dilo haddana waxaa dhiirigelinaysaa in been la sheego been hala sheego ma dhihin deganaanshaha in wax la qabto waxa asalka ah inaad horta de wixii wax qaban lahaa inaad jaanisiiso 3 taliye ayaa nisa maraysa 2 sano la soo dhaafay xooga dalka 4 taliye maraya 4 taliye la bedelay average markaad celcelis u sameeyay kiiba waa 6 bilood ma barnaamij uu ku shaqeeyay uu dejiyaa masoo ku shaqeeyaa muxuu qabtaa cabsi qof hayso bariya laga qaadaya dhahay wadnaha go'ayo aanba wuxuu qaban karaa bay jirin waaye qofkaan moogtaa la raba in laga shaqeeyo dal qabto 3 ammaan duulaa soo martay ciidanka xooga dalka 2 sano hadda la soo dhaafay asluubta oo xabsiyada ilaalisa 3 taliya soo martay taas maxaa ka dhalanaysa oo weeraradii shabaab joogta ay noqonayaan waxaan u aragnaa mar walba shabaab weerar soo qaadayo laakiin ma aragno ayadoo la baacsanayo ama weerar lagu qaadayo ama goobo hor leh laga qabsanayo waxaan u arkaa dawladda Soomaaliya way fashilantay marka waxaan weydiinaa xildhibaanka ما هيسا مدحوين نوب بدلو ديارنا مودين إننا نقبتان مدحوينها الصومالي أو نوب بدشان مدحوين كفي عنه Soomaalida طبيعة ahaan waxay iska jeceshahay isbedelka